Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkan oon ku baran doono qaab kale oo loo dhisayn karayo splash screen. Hadda ka hor waxaan channelka soo gelinay cashar ku saabsanaa sida loogu sameeyo splash screen Visual Studio. Haddaan mar kale tibaaxo, splash screen waxay tahay waa daaqadda ka soo horeysa software-radu marka ay soo kacayaan. Tusaale ahaan Filmora 9 haddii uu kugu jiro kombiyuutarkaaga oo soo kiciso, waxaa ka soo horeynaysa daaqad yar oo lid yar xagga hoose soconayo. Fiidiyowga hore ayaan si wanaagsan uga soo hadalnay splash screen waxay tahay. Haddaad u baahan tahayna qaybta hoose description-ka fiidiyowgan ayaan ku soo dhigi doonaa linkiga casharkaas. Splash screen-ta aan maanta dhisayn karayn doonaa waa nooc gooba, yacni line-ka wareegaya ayaa qaab wareegsan u shaqeynaya sida inooga muuqataba bilowgii hore ee fiidiyowgan. Halka casharka hore dhisaynkiisu ahaa line toosa oo isagu seerka lahayn. Waayahay intaasi hordhac inoogu filan. Waxaynu soo furanaynaa application-ka saynu horeba uga bilowno dhisaynka. Form-kan ayaynu haysanaa, dabcan waana form-ka aynu ka samayn doono splash screen-ta. Marka koowaad isaga ayaan dooranayaa, waxaan tegayaa property haddii aanay halkan kugu jirin F4 ayaa taaban, kadibna halkan bay ku imaanaysaa. Waxaan ka saarayaa form-ka captions-kan, waxaan tegayaa form border style, kadibna none baan ka dhigayaa. Waxaa kaloo aan bedelayaa in marka la start gareeyo form-kan uu ka soo kaco bartamaha muraayadda kombiyuutarka. Halkan waxaan ka dhigayaa central screen. Kor baan u soconayaa, waxaan bedelayaa sidoo kale size-kiisa hakad 33. taas baynu ka dhigaynaa size-kiisa. Sidoo kale color-kiisa background-ka waxaynu ka dhigaynaa color linear. Halkan ay ku qoran tahay background color ayaan imaanayaa. Color-kana halkan baan ka soo dooranayaa. Color-ka orange ayaynu ka dhigaynaa. Form-keenu wuu dhameystiran yahay. Waxaynu soo qaadanaynaa tool-kii wareegga sameynayay. Halkan ayaan imaanayaa, waxaan qorayaa circle progress bar ayaa la yiraahdaa. Tool-kani kuma jiro application-kan Visual Studio. Waa tools dheeraad ah oo lagu soo darsado. Marka qaabka loola soo dego iyo hanaanka loogu install gareeyaba video dambe ayaan ka soo duubi doonaa insha Allah. Kan dhexe ay ku qoran tahay kuna circle progress ayaan soo qaadayaa. Halkan baan keenayaa form-kayga bartamihiisa. Waan dooranayaa si aan wax uga bedelo property-gan aadaya. Horeyn qaybtan hoose ayaynu imaanaynaa. Kan value waxaan ka dhigaynaa 7. Halkan use progress percentage inuu qoraalka dhexe soo muuqdo ayaynu ka dhigaynaa true. Halkanna waynu bedelaynaa, iyana waxaynu dooranaynaa color type grid. Size-kiisana waxaynu ka dhigaynaa 233. sidoo kale kana color-kan baynu siinaynaa. Xoogaa kor baynu dhaqaaqaynaa. Halkan 100 ay ku qoran tahay, waxaynu ka dhigaynaa 150. Xoogaa weli kor baynu soconaynaa. Halkanna iyana color-keeda waxaynu ka dhigaynaa color-kan. Halkan ay tahay background color waan baabiinayaa, waxaan ka dhigayaa 0.0.0 ka baxay. Halkan form-tiga ayaynu ku soo laabanaynaa. Isaga waxaynu ka dhigaynaa 26. Color-keedana waxaynu ka dhigaynaa isna navy. way noo dhameystiran tahay circle progress tani. Waxaynu soo qaadanaynaa button marka la riixo ay dhaqaaq sameyso circle progress tani. Casharkii hore aan duubnay ee ku saabsanaa splash screen isagoo automatically ayuu dhaqaaqayay. Ha yeeshee kan marka click la siiyo button waa inuu markaa dhaqaaq sameeyo oo isagu
si automatically aan isu wadin. Halkan waxaan kasoo qaadan doonaa button guna buttonka ayaan soo qaadan halkan baan dhigayaa. isagana isbedel ayaynu ku sameynaynaa. ugu horeyn halkan waxaan ka dhigayaa kalarkiisa kalarkaas. hoos baan soo soconayaa, waxaan bedelayaa qoraalka ku dhex qoran start. halkan radius-ka hareerahaynu kasoo xoodinaa 20 baynu ka dhigaynaa. soo yareynaynaa xoogaa xagga baynu yara jiidinaa. fartuna way yaryar tahay, halkan ay ku qoran tahay fonti ayaan imaanayaa. ishaas baan soo furayaa, halkan 9 ah waxaan ka dhigayaa 14. kalarkeeduna cadaanka ha ahaado. waxaa kaloo aynu sameynaynaa stroke, yacni kalar ku wareegsan buttonka. kalarkiisa waxaynu ka dhigaynaa isla kalarkii idle-ka. halkaana 2 baynu ka dhigaynaa size-ka border-ka yeelan doonto. intaa markaynu qabanay shaqadii way dhadhowdahay. waxaynu soo qaadanaynaa timer, aynu dhex keenaynaa formkeena. qaybtii design-ka waynu dhamaystirnay, waxaynu bilaabaynaa coding-kii. waxaynu dooranaynaa marka koowaad circle progress. waxaynu soo copy gareysanaynaa magaceeda control C, double click baan siinayaa halkan timer ay ku qoran tahay control V dot increment. halkan 2 baan gelinayaa, calaamadahan aan kusoo xidhayaa. dib baan ugu laabanayaa design-keygii. waxaan isna double click siinayaa bottom-kan, waxaan ku paste gareynayaa qoraalkii aan sitay ee guna dot waxaan leenahay value equal 0. calaamadahan aan kusoo xidhaynaa, hoos baan u tegaynaa. timer baynu qori doonaa. timer waxay leenahay shaqadaada qabso start. halkan calaamadahan baynu isku soo xidhaynaa. splash screen-teeni way dhan tahay, waynu debug gareynaynaa. waa kan click baan halkaas siinayaa. percentage-kii iyo maxay ahayd wareeggu ay wada shaqeynayaan. saaxiibayaal, waxaynu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii video-ga. waxaanan rajeynayaa inaad ka jaahil baxday qaabka loo sameeyo splash screen nooca wareega. insha Allah casharaan badan oo ku saabsan Visual Studio iyo software-rada lagu hal abuuri karaba waan soo gelinaynaa kanaalka. haddii video-gan uu ku caawiyay, waxaan ka codsanaynaa inaad ku dhiirigeliso like-ta. haddii aad ku cusub tahay kanaalkana aad rukumato kana mid noqoto bahda ku xidhan casharkii aan soo gelinaba insha Allah hore uu ka soo gaaro. tan iyo video xiga intaynu ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.